بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد صلاح aan horeyna waxaan u duubay dhowr video oo aan lahaa waxa ay ka tari doonaan waalidka soomaalida iyo carruurtooda qaybihii hore waxaan ka soo hadlay carruuraha sii socodka soo socodka waxaan rabaa inaan muddo hadda qaybtaas wax kuma darin waa ka mashquula raalihaada waxaan rabaa inaan insha allah dhowr topic kale insha allah kusoo kordhiyo aan ku daro topiga galabta madaxa ku haya waxay tahay arrin muhiim oo ah waalidka soomaalidu waxay intaa ka hadlaan oo dantoodu ilaaway oo ay ku sheegayaan carruur inay koriyaan oo haddana wax baraan oo dadaalayaan taa marka waa sax waalidkii ruuxoodii baa marka badanaan innaga waa taqanaa communitygeena I don't know odayaasha waxay joogaan shaqo looma diro hadday jiraan hadday kale lama hayaba laakiin waxaa arkaysaa maxaan ku dhahaa 10kii faamiliba 9 ka mid ah aabihii lama socdo marka halkaas waxaa ku jirta in hooyooyinka ruuxoodu aanay ogeyn oo ruuxooda xanaan u baahan yihiin intaasna barnaamijyo kalaan kaga hadlay oo waxaa la yidhahdaa qofka bini aadamka ay 4 energy ama 4 tamar buu u baahan yahay waxaa ka mid ah la yidhaahdaa physical energy qofku inuu cuno raashin cuno weliba waqtigeeda ku cuno raashin qualityna cuno waxaa ka mid ah waxaa la yidhahdo spiritual energy oo ah qofku inuu spiritually inuu iimaan iyo waxy iyo diin uu leeyahay waxaa ka mid ah emotional energy qofku inuu happy yahay faraxsan yahay oo dad u jecel yahay la joogo wuxuu jecel yahay ka hadlo wuxuu jecel yahay u arko iyo qodobka kaloo ah mental energy oo ah haddii kaleto go-aan qaldan baa qaadaysaa marka haddii wax badan hooyadii aan la daryeelin oo iska socdaan oo intaa waru hayn dhibteeda leedahay halkaa marka waxaad dhihi doontaa iyaguna ay isdayacaan carruurtana ay dayacaan waayo go'aamo badana gaari doonaan waxay noqon doonaan go'aamo muxuu ahaye qaldan mana oga iyagii iyo maska xanaaqsan yihiin ama marka qaarkood ma oga carruurtii canaananayaan ama carruurta waxay ku leeyihin hooyo anigu what did I do maxaa sameeyey hooyo markasta waa qaylinaysaa maan waxaa ma samayn waa runto waxaana keenaya isma oga marka hooyooyinkaasi marka waxaa talaygaa war hooyooyinkaas hala dhaqaaleeyo iyo has dhaqaaleeyaan intii carruurtaan usoo noqonaya carruurtii waxaa moodaa inagu inaan xoog saarnay waxaan rabaa carruurtii inaa bartaan okay maxay baranayaan xoogaa quraana iyo english iyo maths a star waxaa soo baxa okay way baranayaan intaas okay wey waxaa laga yaabaa ilmahaagu maasha allah inuu jaamacad gaaro inkastoo ay jiraan qolooyin badan waxbarashada ku adkaato oo meel dhex ka hara this the worry marka this the worry waxaa arki doontaa islaan 15 sano ka hor loo turjumayo oo form loo buuxinayo oo la caawinayo ama community caawinaysa 15 sano marka cunugii markaas jiray say 10 sano hadda waa 25 jir waa la dhakhtar ama waa macallin ama waa injineer ama waa u shaqeeyaa cunugaas iyo ka badan baa guriga jooga hooyadii weli waa loo turjumi doonaa weli community baa caawin doonta weli way dacwoonaysaa weli way language problem baa haystaa saas maxay tahay ilmahan ay wax bartay oo intaas soo gelaysa what is the use rurta maxaa loo karsanayo wax faa'iida male low kuma kalsoona waxay ka kalsoon tahay heblo wiilkeeda kalsoon tahay labo anogani ingiriis hadduu ramo yaqaano ingiriis ku hadlaa waa academic language yaqaana imtixaanka eebo keenay waa shaqeeya dadku la shaqeeyana luqadda shaqooyinku luqay leeyihiin sida xisaabtu luqa u leedahay ayay shaqooyinku luqa leeyihiin hadda dadka makanika tusaale ahaan birtay ka hadlaan uma naqaano dadka dhaqaalaha bartaa ereyay ku hadlaan dhakhtarku ereyuu ku hadlaa macallinku ereyuu ku hadlaa anagani fieldu bartay shaqadiisa waa kaa dadya manager waayaba laakiin hooyadii marka dhib baa dhacday arrinta marka muhiimkaas oo laga sheegay qofka bani aadamka wadamadan iminka anu UK baan joogaa dadku ethnic bay leeyihiin English Welsh Scottish
and you know Asian background and any marka foonka xataa la bixinayo waa aragteen hadda Soomaaliya baa lagu daray meelaha qaarkood. And this is the problem marka ilmaha korsatay isku luqad ma tiidin tirahdaa luqadda hooyo gabar Soomaali gabar la wareysanayo Asian oo carruur Soomaali dhashay baa waxaa la yidhi carruurtaada see ku barteen luqadda Soomaaliga luqadda carruurtaada iyagoo waaweyn bay hadda hindiga ku noqdeen waa tarjumaano way shaqeeyaan waxaa la yidhi carruurtaadu seebay luqadda ku barteen iyagoo Soomaali ku dhashay luqadda hindiga waxay tiri hooyadood baa hindi ah innagana hooyadood wuu isiiyey innagana hooyadood yaa weyn cunugaygu luqadda Soomaaliga ah yaanay ka daa carabiga ka dahay hadda maxaa soo baxay marka cunugan Soomaali waa Soomaalida dhala waa la yaqaana cunugan in hebel laakiin laba eray Soomaali isku dir waxaa la yidhahdaa marka this is the point waxaa la yidhahdaa dhaqanka iyo luqadda traditions valuegaaga luqaddu jiridda geedka waa aragtay geed waa taqaani geedka wuxuu leeyahay xidid Soomaali gas xidid oo naqaanay roots iyo branches jiridda stem jiridduna waa kala isku haysa qaybta kore iyo qaybta dambe lafdhabarti waay no I don't know what to say ma garanay waxaan ku hadlo waddankan aan ka joogno iminka magaaladan jooga aan deganahay laba qolo la yidhahdo Polish iyo qolo la yidhahdo Asian laakiin originally laakiin ka yimi Afrika lixdameeyadii 70skii waxay dhaheen kow markaan nimi meeshaan waxaan gadana kaniisado iyo masjido waa laba qoloo kala duwan why inaan ku ilaashano diintayada iyo dhaqankayaga fiirso qof Soomaali oo dhahayo maqlin never ever ma arkayso masaajid waxaan u dhisannay center waxaan u furannay dhaqankayaga arki mayso laakiin diinta haa meel lagu tukado meel kaas alxamdulillah taa ku fiican nahay marka ha dhowto you don't have culture you don't have values who are you adig waxay ku taalla oo inaga 25 waxa ka yar 28 30 waxa ka yar they speak different languages which is good though inaga Soomaaliya waxbarasho la aadi jiray PhD baa la soo qaadan jiray luqadda waxbarashadeedu luqadda Ingiriiska looda kale laakiin luqadda hooyo waa luqadda hooyo la yiri luqadda Soomaaliga waay culture baa leedahay value baa leedahay waddan baa ka timi sharaf baa leedahay diin baa leedahay carruurteena laba isku xijin karaan wuxuu ku leeyahay waxaa la yiri carruurta Soomaalida iyo waalidkood 9 eray baa ka dhaxeeya 9 kuna waa amar 9 kana amarka waalidka bixiya 9 qayb kamid waa la sheegay tuko ashay qubayso tuushinka aad masaajidka aad baa ka mid ah 9 wax ilmuhu waa fahma yes ma buu leeyahay that's enough bay dhaheen okay hadda dhibta jirta carruurta guursanaya hadda Yurub ogtiin oo dhowri labaad sidoo jirada ah first language Dutch iyo ku hadlayaan Soomaali Ingiriisi ku hadlayaan Ingiriisi iyo wadamada jawaan bay ku hadlayaan وعنق على شيء هذول نول هذا عنق دلائي لقد يقول لدونا no at all unless يعني مركز أركض شيء كواي يقال عنه إنه لقد الصومالي قال لنا هاي ويومدو وحي لين وايستان وهذا إلى هذا few countries Somali look إنه هذا Somali بهانجرني إن هاي هذا اسمه رأسنا علينا هاي بلا لاسي Somali أتا ويا شعوي Somali أتا أوكي لما فاني كرو أوريجينال قم كست أوريجينال هايستاري فالي يبالي هذا فالي يبالي هايستاري محالي نمان لقد دعوا مرك هل جرك كويلا نيسا دين تاري كويلا نيسا تتكاجي بكو حريسا تتكاجي حريسا أي وحال رامرك إنك الربا عرورتين وأنا القطة إلى شنو كل إلى شنو فاني إلى شنو لكن هذا وحنا إنجليز كلها هذين عرورتين بري مركب بعضه تكله لقطة هوي حتى وحال هذي وحبرشنا مركب هذا وده ما بايلينجوال كوري أستراليا كندا كمان وحال هذي عرورتها لقطة هوي أقوى كل شيء يعني وحال إذا قفك لقطة هوي L1 بري هذا وإن جوكتو level 4 level 4 محاوي وإن لجل جديد waxaa marka la yiraahdaa caruurahan hadda wadamada kale ka yimaada bayliinkuwalka ah
imtixaanada su'aalaha waxay ku fahmaan luqadooda hooyo maaragtay soomaalida carabiga yaqaan oo kale inoo ka sheekeeya maskaxda mudshiin baa ku rakiban automatic buu ku bedelaya markaasuu waxaa leedahay okay saasaa la yiri qofka soomaaliya kaliya yaqaan fiirso oo luqada kale aqoon qof soomaaliya kale u tarjumaya markii waa tarjum transfer ilaahay baawur nasiiyeba marka waxaa la yidhahdaa caruuraha soomaalida marka waxbarashada laga hadlayo waa caruuraha marka hadalka laga hadlayo makhaarij alxuruuf waa the best marka laga hadlayo pronunciationka iyo luqadda dadka kala xishooda xataa laakiin qoritaanka markii la yimi beg ma qori karaan baa do you know why because luqaddii ay ku fikeri lahaayeen luqaddii hooyo oo ay vocabulary badan ku haysteen ma yaqaanin maxaa dhacaysa marka konton eray ingiriiska luqadda adu bacdama aad u dhalan macquul maaha inaad tan tii aad u dhalatay inay kugu jirto marna macquul maaha bodhigaa kuma jirto markaasuu markuu dhexdan marayo istaagayo basaan leeyahay halkan marka laga hadlayo su'aalaha iyo debateka iyo hadalka waa grade 9 qoritaankana nus beg ma qori karo you know why luqadiisa hooya laga hatala whether you like we Somali ethnicity you whatever you don't worry iniga laga hadlaa inig baa laga hadlaa ayeeyoy adeero qaraabaa leedahay dhul baa mid ku leeyihiin what is the problem waxa waaye what about haddii cunugaaga laga turjumo ayeeyadiis dii looga turjumo ka war su-aal baa kugu soo noqonaysa hooyoy maxaad qabanaysa communitygii maxay qabanayeen macallimiintii soomaalida waa buuxaa la amri aan leeyahay qiimana waa fadhiya values marka shayga qof kasta arag wuxuu ku leeyahay maxamed saalax ciise baa rabaa marka horta laga shan iyo labaatan buu diyaar leeyahay halka la yiri malcabada quraanka 10 ma ogola luqad wayam arki mayso qof dhahay wax ruurtiin waxa rabaa luqadii inaan baro luqadii askal war luqadan Soomaaliya فرسون luqadda ayaa iskale war waxaa rabta ahaw british iyo dutch iyo shiinays iyo maraykan iyo waxaa rabta ahaw laakiin caruurtaada xiriirkoodii ha ka jirin maxaa tala ah marka maxaa la yeelay listen it's good for you takale inaga fiirsan caruurteen kasoo qaada ilmahaagii waa la burin karay dhibtiin haystaa iskoolkii baa lagu burin karay عرب Somalia دعوه وحيري I don't want to show my emotions I go to toilet and cry and go home don't want to tell anyone English قال لك يا emotions كي ما ممكن كأ المشاهد عاد الشيء أو سكول كنتي أما كوليج ديكت أما كو هديك بكل عدو أما بالإنجليزية أو امتحان مدير كانوا أما وحنا كفر حسنين دعوه كوما شيء كرو قلت له مام okay don't worry it's okay Do you know he knows? You don't know what he's talking about. Look at he cannot express. She can emotions. Somali in a mujian shu'urtooda express their feelings in sheegaan kuwada ingiriiska waa khasab ay ku tahay ku shaqeeya laakiin waa sax qofku uu dhahooyo aniga maantii qadada kuma faraxsanayn aniga kalaaskii baa laga bedelay aniga ma jecli bundadan keenay feer ma aha hooyo sooyo waxaasaan rabaa ma dhihi karo he knows hooyadaani luqadda ma taqaano markaasay kutub islaamiya soomaalida maxamed saalaxow 15 sano joogo mana qoro mana aqriyo beentii baana qortana diinta baratan oo ku fiicantii orday luqadda barta haddii kale ka taga dhulkaan because waa muhiim inaad barato adigu ruuxaagu luqadan waddanka sida caruurtaas u fahamtaan ilaa caruurtii Soomaaliya beerta gelintay very important haddii kan maxaa dhacaysa fiirsada hadda soo raadina wallahi maxaa saalaxow markaa hadlayso guriga caruurta markay islaamu telefoon ba dhasta ku jirta gaariga wataan ilmaha soo fulan gaariga kow laba saddex soo fusheen ha
يا خميس كلا بدل يا قرآن كلا هذا يا تدبر على جيمنا يا توش بال هذا يا على صون قرية جيم بال كلا يا هذا ورا سحنا سوى اسكول بال هذا يقول إنجليزي كل هلا يا ما رجع من لغة ودك الجوال بيسي everyone sabi قف سبع سنين رجعان سو ما هي لو رئيستوري ورمان سو كل شيء مجري رد أي شيء يعني حول رقت بقى أو رعت سؤال هم قدر سؤال حول رقتها وحول رعت هذه حول رقتها الله هي كما في عن يدرب قدر الله هي بقول قالوا وتوكل ولا إيه إنه هذا عرق سومالي عرق كرسديال مالدو وعرو راعتيال بس كنت وصلنا بس كنت وصلنا أنا دمرك كوما شيء كروي وكا قرنا يا سدوني سوا 65 جنيه وكا قرنا لبو كا قرنا كو مر وحو تعب سنة أنا فاهم يسو ولي هو يدي مرة بنا كنت كلام حكوا لي هو يدي مرة أنا نيدك عمري هو يدي إني أنا تو وترى هذا بلا كول هذا ساقط بعد تايو هو خسارة أنت سامعك intaasan intaasan lacag kaa bixiyey hawl kale u galo marka laakiin haddii ilmahaagu og yahay ilmahaagu hadduu og yahay inaad waraysataan haye ka waran maanta ila inagu waxbarashaan ka hadalnaa emotion feeling qofku waxbarashada boqolkiiba toban bini aadamka inti kale aawo ilmahaagi ma faraxsan yahay ilmahaagi ma caafimaad qabaa ilmahaagi muxuu ku fekerayaa ilmahaagi muxuu dareemayaa ilmahaagi muxuu experience haystaa ilmahaagi ilmahaas eedkiis muxuu rabaa ilmahaagi muxuu madax ku hayaa wiilkaa inuu guursadu rabaa gabadhaad inuu guurstii rabtaa muxuu waruma hayno gabadhaadu intay imaatay kor fuule wiilkaagu 5 saac baro imanaha ku soo aadayaa idiguna telefoona kula leh saaxiibada ama cajara ku jirta la galaysa iyo quraan baad dhigataa laba ummadood waxa ka daran waxa tara very important gabadhaha baroon hadda islaamaha role model u ah kii wiilha fara kuma hayno waa wiilka aabbaa loogu talagalay wiilka nin ragaa loogu talagalay wiilka tababar baa loogu talagalay wiilka tafleyd baa loogu talagalay laakiin hooyo iyaduu shaqadeeda ka soo baxday emotions shaqay welcome naxariis wiil waxrayn wuxuu kula intuu xaqribo sorry markaas leedahay maasha allah wiilkii wadaad u dhigaa laakiin ninka ragga wuxuu kula yahay was not enough sorry sort out he will do it waxa kula talay dumarkii qori waxbada baa laga qoray macnaheedu ma aha in la leeyahay inuu single mom baa loo badan yahay islaama kaligaas single mom soo arku waa single mom hooyo kaligeeda waxa la macluum maaha ina leeyahay hooyo keligeeda ay armo kalan karto maaha wax kasta hawl meel bay leeyihiin fiirsada dumarku hadda biibay qabaano maya anaga maxaana la kuga ma aha qof kasta hawl buu leeyahay hawshiina idinku waa ka soo baxdeen ninka wiilka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo wiil baa diyaarin karaa ee maan ka dhigi karaa beri wuu guursanaya maxaa keena furiinka badan hadda maxaa keena teenage kala noqonaya nin waxa gabarheedood guursanaya xoogaa lacaga wato oo shahan karsan karin islaamaha ida hadda hooyo way dhegeysan doonaan aad buu dhegeystaa barnaamijyadeeda wiilkaaga 20 jirka kalsooyinkiisa iyo dharka adaa ka bedela adaa u dhaqa saxanka u keentaa miiska adaa ka dhaqa u qaada qadadana cashadana adaa u kariya maxaa dhacaysa wiilkii wuxuu aaminayaa sidii hooyaday wuxuu karin jirtay guriga u haysay buu gabadha reeradoo fadhiisaa rabaa inay ugu adeegto sidii adigu adeegaysay carruurtaada waxaa tala ah wiilka haddu horta u baahan yahay horta in la yidhaha waryaa dhegeyso adiga dharkaaga dhaqo oo kushiinka gal oo hooyada caawi oo karso oo nirga noqo ila barrita nirga noqone aabbaa noqonaysaa guri la dhiso macna samayn mayso noqtahay konta kunoo turkigi dubay laga keeno doesn't make sense maan aa loo baahan yahay haddaabta guryahay adhisi ilaaho baad second hand sariir ay ku aroosaan value baa loo baahan yahay qawaamaa loo baahan yahay leadership man ee loo baahan yahay because bari carruur muslim uu dhalayaa uu korinayaa xidid buu yeelanayaa gabar reer buu kubsanayaa oo saa loo dahab ah oo lagu hayay gold ya gabar ishe baa gacanta laga soo saaray saa maqlaysaa innagaana mas-uuliyadda waalidka iskale wiilkii waa in aabba diyaariyo oo la yidhahdo dhegeyso emaan baa noqon doontaa
gar baa tagaysaa gare hooyadaasaasan ku guursaday aan halkaasaan ka baxay intaasaan xoolo bixiyey leadership haddii kale wuxuu nagu soo kordhinayaa maxamed saalax walla caawina dhacaysa tayda sheegayaan no waa in la helaa mustaqbalka dad Soomaaliya oo wax bartay oo carruurtooda wata oo xaaska wata oo carruurta korsanaya oo wax baraya oo generationkan aan lacagta gelinay oo maalka gelinay oo wuxuu sheegaynaa waa in rag ka soo baxaan innagayna noo taallaa waxaan ku talagalno haddaan laakiin iska soconno oo geed beerato aadan warwayn waxa ka soo baxay ummadaha kale dhirtay beeranayaan daynna waxa ka soo baxaya waana wada qaybsanayaan aabbiyo hooyadu soomaaliduna markuu ilmuhu dhow 10 gaaro baa laisku furaya waa laisku qabanaya meesha loo socdo waa laisku qabanaya beerta ninkaa beertay hawl kale maasajka marka lab baa rabeen yan dheerayn kow please intii goor tahay isku taga waxaa jira dad Soomaali helaya waa la helaya isku taga please carruurtiinu inay luqadiina Soomaaliya qori karaan akhrin karaan xog saar welibana masjidada quraanka ku dara timetable-ka ku dara lacagtana wax ku dara hadda meelaha ugu fiican oo Soomaalida haysto waa masaajidyada oo meel space macallimiinta la helayo macallimiinta xataa hadda ka dhiga masaajidada Yurub waa dhalinyaro ruuxda Soomaali badan ma yaqaanin meelaha qaarkood hadda waxaa laga bilaabay in waqti la bixiyo waayo communicationki kowaad waaba language ugu horreeya adii carruurtaada waay waad leedahay hooyo dhiyo ma soo dhamaysa yeema it's not enough ilmahaaga daad ogaato inaad ogaato xaaladihiisa hoose waa inaad fahmayso luqadda ku hadla taas waa mid taa xigtana waxa weeye wiilashan aan korinayno teenage-ka gaaraya rag ha loo diyaariyo sidii gabdhaha ayaan loo korin waayo gabadh baa taqaaniin gabadha guriga imanaysaa hooyadaa role model u ah hooyadii ku dayanaysaa kulli gabdhaha Soomaaliya successful weeye waxaa successful maxaa ka dhigay hooyadii baa successful oo community-ga hor socota odagii lama hayo hadduu kalen waxba loogu dirsado reportka xataa islaanta akhrinaysa waa horay ka dhigeen gaarkin geliyeen kow wiilku haddaanu arkin aabe shaqeeya haddaanu arkin abti shaqeeya haddaanu arkin adeer shaqeeya haddaanu arkin qof ka weyn oo nin raga oo role model u ah suu hooyada u soo korinaysay aa gabar reerood lagu daraya uu ka soo noqonaya waa dhacday taas sheegaynaa marka ma diyaarin kartaa dumar rag ma diyaarin kartaa raggu doona lacag ku baxsha hataa muslimiin u keena lectures ha loo akhriyo ha la diyaariyo dhinac kasta laga diyaariyo shahaadadii waa wataan aqida laga diyaariyo diinta laga diyaariyo dhaqanka laga diyaariyo akhlaaqda laga diyaariyo xuquuqda lagu leeyahay laga diyaariyo waalid muxuu yahay hasbaan nin raga noqonaysaa aab baa noqonaysaa nin gurina noqonaysaa gabadha reer muslimiin baa laga rabaa maxaa la iska rabaa nin ragaa tahay maxaa laga rabaa warna Soomaaliya ana waxaa leenahay intay ka baxday dowlad laan baa dhashay tan kale aan raacina oo topic hadda kahor aan ka hadlay oo muhiim ah jaaniska ka faa'iidsanaya inagu Soomaalidu carruurta ilaa iyo 16 jir waa ka adag ilaa iyo 16 jir islaamaba ka adag odan ma loo baaran hadda si ku wadaan way arig si xawata tatbish sidee wada taayida ka adag waaba ku tartamaan gabar kasta wasaas ma loo baaran waaba ka maarmeen waa hore توشنك كسؤال قرآن كسؤال إسكول كسؤال الحمد لله توشن كبحي العاد كبحي سكستيال منوجي أكنا والحية توجر وحافظ القرآن تضرب أبو وتا كلش في عم بوهري هل كاسو كبحي واتليس لابد يبقى ليس كو environment بنانك أو دل أمد يارين تتكهرية meelo ku soo noqdo dad ula sheekaysto meelo ku tukado meelo ku ciyaaro ugu talagelin warshada nagu jirto oo labo in wiilkii laga daba tago oo rag dhalinyaro iyo qaraabo iyo ka daba tagaan ama dad mentorisa oo ka daba taga oo korkaa kala socdana qorshe kuma jirto kuleedkii markuu tago wala war hore saaqidaa joogo meesha balagada inta wiilkeeda ha yes موبايل شنو لو سو قضي امتحان كو سو باسي بارك انت لو دبتا موبايل كلا laga qaadaya hadhoona gaangu ku biiraya meeshu 19 jaamacadda medical geli lahaana xabsi ku galaya tamha tala ah wiilasha kuleedka caadaya hadda way maqlaysaa dhimay socda may maqlaysaa kuwa hadda dhigta year 12 year 13 kuwa hadda GCSE ka baxaya please wiilashaas ilaa 19 yaan laga harin
gaan laga harin gaangiga iyo beladaas jinnigu hadday arkaan wiilkan in dad uu leeyahay way ka dambaynayaan way ixtiraamayaan way dhaafayaan laakiin wiilkan halkan islaan keliyaa soo korisay kuleejka markii la geeyana meeshaasaa loo istaagay this is the problem wiilkii markuu kuleejka aaday cidi waxuma sheegin been ma yaqaan oo gaangi ma yaqaan oo khiyaano ma yaqaan oo daraag ma yaqaan oo sigaar ma yaqaan oo saaxiib ma yaqaan islaamka iskuul ka soo baxayba ininka raggaa u sheegi lahaa ma joogo meeshaan islaamuma qorshaa uma jirto taas qof kasta honest u haystaa habaryar iyo wuxuu yaqaana abti niman 3 sano saaqid ahaa ayaa kulajooyinka bannaanka wareega ayaa le waa ku naqaanaa haddii loo hanjabo xataa hal mahayo dhaho see loga fikadaa yaa loo dacwoodaa lama oran xataa saas arki doontaa saas arki doontaa saa hadday dhacdo saa hadday dhacdo saas yeel lama oran iska dhaag waxbarasho naftiisi baa khatar gelaya addoonsi buu gelaya islayf wuxuu u gelaya gaangi because gaangigaasi ma raba in qof ka guulaysto yaa marka diyaara inta cunug 16 sano soo korisay aad tiri hooy hadda taasaa socota hadda idin sheegay aniga haddaas darayaalka maxaa xala marka haddaadan adigu haysan walaalka weyn ama adeer iyo abti qofta waxa ku leeyahay adeer ma jiro dadkii dhan qabiilkan laga sheekayna maqamele adeene dhalinyaro wanaagsan raadiya oo lacag ku baxsha bishii lacag u qora waxaad tirahdaa mentoring baa kaa rabaa biliis cunugaygaas intuu kuleej ka dhiganaya halka sano at least sanadka koowaad biliis kuleejka marugu tag maqaayada shaaka la soo cab tabanka isku raac la soo cashay biliis ii waani qiimaha waxbarashada haddii kale cunugaan dhalinyaraa waay wuu soo qangaaray waxay badanaa jira khibradna ma haysto noloshii sida lagu ma jirto looma soo korin sida gaari loogu wado sii wad baa la yidhi orod kuleej ah arrintaas aad bay idhibaysaa waana ta keentay dhalinyaro badan oo soomaaliya oo wax badan qaban lahaa muslimka u qaban lahaa inay maanta xaaladooda og tihiin oo inaguna aan eedeynayno qolooyinka kale taas waa shay marka soo urursho islaamahaas hooyooyinka waxaa oran lahaa laga taxadaro naftooda ha daryeelaan wixii daryeeli karaan ha daryeelaan ta kale waxa weeye biliisan luqaddu waa muhiim iyo kaljarkiina waa dhaqankiina waa faaliyugiina weeye ta kale waxa weeye biliis wiilashii rag ha loo doono idin tababara mentoring coach ah wax badan ninka raggaahi nin ragga waaye wax badan buu og yahay walaalayaal waa dumarku aanay qaybtaa ismada hawsh waa la qaybiyey ninkan ragga waaye gabar baa loo doonaa gabdhaha ruuxooda loo doonaa gabadhaada markay 16 jirto 10 gabar ka weyn oo maasha allah oo dhinac kasta ku fiican u doonaysaa waxaa leedahay gabadhii tala sii way soo socotaa gabadhi wiilkuna waa sidii laakiin adigii baa wada maalintii kaa tagaana socda xaggee aadayaan ummadahan muslimiinta iyo ummadahan kale waxay leeyihiin network wax la yidhahdo safety network bay leeyihiin way ku talagaleen way diyaarsadeen haddii kale waxaan macquul ahayn inaad tiraahdo iska socda annaguna waxba mugu talagelin masaajida waa jiraan xoogaa hadda aan badnayn oo dhalinyaro isu keena iyaguna inkastoo qaarkood la yiri jaamacadii bay ka hareen waxbarashadii marka qof baa u network leeyahay oo hadda meel isugu yimaado la sheekaysto adigu maxaa barataa jaamacaddaas adigu maxaa barataa macadka islaamiga adigu maxaa samaysaa sanadkoona jaamacadii ka baxay adigana anigu waa guursaday marka waa inaa heshaa dad saasoo kale hesho weeye yaa diyaarinaa taas culimadaa laga rabaa communitiga laga rabaa masjidadaa laga rabaa hadday noqoto in nin kasta cunugiisa uu gacanta qabsado arrintaasi walaalayaal ma ficna waayo inta rag jooga ma badna inta kale cidlo kusoo dhacayaan haddii cidlo kusoo dhacdaanna way kugu soo noqonaysaa adiga xataa أقرأت من تبليغ صاحبنا هيبقى نوي وعيري you know way تبليغ أنا وأنا وعير هدي بري جاية عاد جودها نقطه أو كلين كوي لكن بنانك كناع جوكتو سو يريد مركا فرتكوسو قلي ميسو ها وعير أنا بنانكو بعد كان عراس أبو في السوق أنا وحكوا ذي هدادا أديكو كليجا كمفلي أنا كليجي إرف معه كل يعني ولا شيء من متى كران هذان أمضها كلا عاون هذان إنفورماتيك عاون هذان إنفورميشن كيسين هذان كورسو قاعدين هذان اللطرين هذان قاعد جرين يجي يعني يوص أنا أقول نبين نفك تجرين يسوي يعني هذان لكن هو الشيء غير هبل واي أنت كبعد أيوه خلاص صح معه تكلا ضد بدنا جل الصومالية وحتى مسجد أكو حين دي ماله وما قالوا يكبوها ودقن أقوى هنا بليز تذكر على قفا يستو community halooga faa'iideeyo dadka idageysan doona barnaamijkayga oo qoladaa ka mid ah biliis masaajidkan cid idinkama leh carruurtaan cid idinkama xigto
islaamahan singalka ciidinay kama xigaan bliis ha ka xishoonina waa baahan yihin waa baahan yihin waa baahan talay rabaan riboorada loo aqriya rabaan advice bay rabaan jaamacadii lagala caawiya rabaan shirarka loo tagay rabaan gabadha xataa inay dub guurso la caawiya rabaan yaa qabanaya shaqada daando anigu amiino anigu intee ka baxday reerkeyga marka waxaa la yidhahdaa waa in muslima loo fikiraa waa inaan kor u fikirno dadkeen Somali heritage waa idin kaagama sokayso annaga og 20 sana hadda iskoolay secondary joognay baahida annaga garanaynaa laakiin leadership baan u baahannahay ummadu waxay leeyihin hogaamiyaal bay inagu taas the problem na haysto hani iyo hunguri baa la yidhahdaa telefoon badan baa shaqeeya hadda hungurigaa shaqeynaya idayna arki maayo khatar baan ku jirnaa hanku markuu shaqeeyo waxa weeye inagoo dhan baa isla nabiga alayhi salaatu xadiiska muxuu ahaa maynan aaminin ilaa aad walaalkiin la jeclaataan waxaad jeceshihiin haddaad jeceshahayn carruurtaada kulli kuu ficnaadaan way ula jeclaan weyso kuwo kale hadda waa ognahay in dadkii kala gogo'ayo qoloba masaajid gooniya iyo qoloba meel gooni iyo qoloba maclan gooniya ku xiran tahay oo xataa aan la soo keeni karin oo xataa aan la caawin karin aakhiro igaa la weydiinaya qolada gogo'sanaya iyaa ka jawaabi doona war luma hayaan runtaa ii sheegay aniga war luma hayo anaa og wax badan marka boliis waxaa talayga ah dadkaas ay la joogaan dadka soomaaliduna boliis masjidada haysta ama santarada haysta ama communitiyaasha adigu si kastaa kugu yimaadane boliis islaamahaas fiiga bixiya ama qur-aanka bartaa mid kasta 7 carruur leedahay waana baahan tahay hoosa loola socdo masaajidku xataa dad ha shaqaaleeyo iyaga lacagta ka qaada ha la waraysto wiigaan kuwa la cayrinaya kuwa iskoolka tegin islaamii kuwa cabaaday islaamahanu iska qabsanaya مرة واحدة أوكا لكن وين ضد ناصحين أو رئيسته وأنا أقتها قفت بيلا يبقى وين أقتها بس أجيت دوك وين لك هنا ويجي مر سيكولوجيست شيخ عالم مختار معلم أنت عارف ما كيسولو يهين توشينو أروت العاوية وإلمو ما هدوك باسو حتى عبر عادي كا وكل فعل عندنا حتى الدين تنا مركان ليه هذا تسبح عبان waxaan rajeynaya inaad kuna noqotaan cajiladan oo wax badan kasoo bixi doonaan insha allah waxaan qalday nafteeda shitaan baa shaqa ku leh waxaan wanaajinaya ilaahay haynoo wanaajiyo waa ustaad maxamed saalax barlabaad ana ajilada hore u dhegeysteen maxamed saalax wiisi iyo waay u qaylna idinkaa ogaan doona laakiin at least you know Somali ku hadlaya ala kulli xaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu